markale saaxiibada qiimaha badan meel walba adduunka ka joogtaan iyo sawir maqalkayga idin soo gaarayo waxaad nagala socotaan barta YouTube Timsona iyo sidoo kale TikTok Sadaqsona haddii ay markii ugu horeysay ee soo booqatay anaga inaad nagu soo dirto maxaa yeelay inaad nagu soo dirto waxay noo tahay dardar isoo kale dhiirigelin dabcan qisadani waa jacayl ku daraastay waa gabar 23 sano jir ah oo ku nool dalka Canada caasimadiisa Toronto waxay la nooshahay aabaheed iyo walaasheed ka weyn hooyadeedna waxa ay geeriyootay 5 sano ka hor xilliga ay ku noolaayeen xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalka Kenya. Hodan waxa ay wax ka barataa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala caasimadda Canada waxayna barataa kulliyadda dhaqaalaha waana gabar ku fiican waxbarashadeeda lehna awood dabiici ah naxariis iyo dabeecad wanaagsan ee ku manaystay. Hodan waxay ahayd mid mar walba ka timaada jaamacadda inay isticmaasho baraha bulshada qaasatan aaladda Facebook taas oo ay mar walba jeclayd inay waqtigeedii nasashada ku qaadato. Maalin maalmaha ka mid ah iyadoo isticmaalaysa barteeda Facebook qaybta laga aqbalo saaxiibada ku soo darsada ciwaankeeda ayay waxay ku aragtay mid ka mid ah asxaabtii ku soo darsatay way ugu qoran tahay qoraal yaab iyo amakaag geliyay kuna qasabtay inay si degdeg ah uga qabasho qofkaasi. Qoraalka ayaa ahaa waa nasiibkii adduunka kadib aqbalaadeedii ayay waxa ay bilowday inay la hadasho balse ma uusan fadhin saaxiibka wuu ka maqnaa sidaas darteed waxay u reebtay fariin ahayd ma dhab ah mise waa dhalanteed waxayna u raacisay haddii aad tahay nasiibka adduunka ana waxaan ahay nasiibkaas hooskiisa kakakakaka. Saacada kadib waxay heshay fariintii ay dirtay jawaabtiisa oo ahayd waxba kama qabo haddii aan helayo hoos aan ku ilaaliyo nasiibkaasi. Halkaas ayaa waxaa ka bilowday sheeko cabaar socotay oo la isku xog wareystay mid kale. nasiibka adduunka wuxuu noqday wiil ku nool magaalada Muqdisho ahna arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala caasimadda wuxuuna wax ka bartaa kulliyadda beeraha wuxuuna la nool yahay hooyadii iyo abtigii la dhashay. Hooyadiis kaas oo qaaday mas'uuliyaddii kadib markuu aabihii ku geeriyooday shil gaari uu darawal ka ahaa. wiilka ayaa lagu magacaabaa Haruun. Hodan iyo Haruun ayaa isku fahmay inay sheekaystaan si laba ruux oo walaalo ah wayna ku qanceen labadoodii go'aankaasi. Muddo bil ah markii uu socday xiriirkii walaaltinimada ahaa ayaa Hodan waxa ay ka heshay sheekadiisii iyo kaftankiisii weliba si saa'id ah waxa ayna bilowday inay ka fikirto inay ka dhaadhiciso in xiriirkooda u bedelaan mid jacayl ah. waa tii uu nimcaan dhahay intaan baajino barashada walaalnimo bee bandhigo jacayl bedelo miyaad iga bi'in mada burqanaysa baajin barashada walaalnimo bee haddaa bandhigoon jacayl bedelo miyaad iga bi'in mada burqanaysa. walow fanaan hayn hale u qaato balse waxa ay bilowday su'aalo ay weydiinayso isaga kuwaas oo ay ugu dan lahayd dareenka iyada haya inuu isagana dareemayo. habeenkii xiga ayay qadka isku arkeen weliba isagoo fariin u soo diray oo ahayd iska war nasiibkaygii hooskiisa. Hodan waxay ugu jawaabtay waa nabad ee sidee tahay nasiibkayga kakakaka. Haruun ayaa la yaabay fariinta balse waxba kama soo qaadin fariintaasi. Hodan ayaa waxay weydiisay su'aal yaab lahayd oo ay ku tiri ka waran haddii qoraxda oo zaa'id aad hesho hoos aad ka gasho maxaa samayn lahayd? Haruun ayaa ugu jawaabay markiiba waan ka gabadsan lahaa